walaalow xalay mar halkii saac iyo bar ah ayaa magaalada anagoo joogno waxaa naloo sheegay ciidamo al-shabaab ah in ay meel magaalada u jirto adiga 5 kilomitir in lagu arkay raadkooda oo badan oo ceel dheer xaggiisa u soo socda ayaa dad noo soo sheegay dadkaasoo hadda magacooda sheegi karin oo isleeyahay nabadgelyadooda armay wax u dhiftaa xilligaas ayaa magaalada dadkii sida badnaay way ka baxeen oo magaalada sida badan waa laga qaxay marka abaarihii 4 saac iyo 40 meelahaas ah ayaa nimankan al-shabaab la yiraahdo waxay weerar ku soo qaadeen saldhigga kaliya beegsadeen magaalada kale wax dagaalaya xabada kama dhicin dadka aan aqoon ceel dheere meesha ay ku taala waa halkee waxay ka taala ceel dheere horta waxa u dhaxeeya Dhuusamareeb iyo Gurceelna wuxuu u jiraa 36 kilomitir oo dhanka bari uga jira Dhuusamareebna 28 oo dhanka qorrax ugu aadan yahay adoo barabarahooda ku yaala waayahay waxaad tiri halkaas ciidan noocaas ayaa weerar ku soo qaaday wax khasaare ah oo halkaa ka dhashay iyo sida aad wax u dhaceen iyo waxa aad maqlaysay bal nooga waran muddo adiga 20 daqiiqo ayaa xabadu socotay wiilal yar oo booliska oo maaragtay magaalada amnigeeda dadka iyo waxaas kala celi jiray yaa saldhigga joogay xabadu markay bilaabatana wax yar iska caabinahay sameeyeen waana isaga baxeen kulleeyta hadda khasaaro wuxuu la egyahay wiil dhaawaca arcid u xareysnaayo ilaa 4 neef ka dhimatay wiil aqal meel u yaalo hadda raba inuu ku arooso aqalkii aniga la ii sheegay ma tagina toodariyaasha iyo oo kale xabada tareesaa oo beeka ama inta ku dhaceen oo guftay waxyaabo uu saasa la ii sheegay inta aan ogahana waa halkaas noo dhaawac haddana waxaan joogaa saldhigga dheere dadkii waxaad tiri magaalada waa ka baxeen marka ay maqleen in ciidamo noocaas ay ku soo fool leeyihiin dadkii xaggee aadeen dadku duurka ay u baxeen qabowna waa iska jiray dad waa yeela oo qabowga taali karin ilmo yar oo qabowga taali karin duurkaasaa loo baxay waqtiga lagu jirana waa dareemi kartaa guriga qabow lala seexa waayay dadkan marka waa wax ilaaha u marqa wax kale sheegna ma garanayno haatan amnigoodi sugaa male marka amniga xoogaa ciidamo ayaan dhaweyta nala joogi jiray waa naga guureen nimankii iyo ay annaga wax noo dhaxeeya male xilligay doonaan noo imaahayaan xilligay doonana way tagayaan haatan magaalada ceel dheere oo aad ku sugan tahay oo xalay weerarkaasi uu ka dhacay xaaladeedu waa sidee magaalada xaaladeedu haddeeta waa moodaa xoogaa inuu xasiloon yahay laakiinse waxaa lama huraan ah xilli kastaba xilligay imaan jireen iyo annaga inaan ciidana noo dhexayno ciidan aan isku hadlayna iyo hadda aysan noo dhexayno oo ay taagan tahay waqtigii noo imaan jireen inay hadda noo imaan karaan laakiin magaalada jawgeeda hadda waa degan yahay waa alxamdulillah wax dhibaato kama jiraan wax ciidamo ah oo kale oo gurmada oo idinkaga yimid meelahaas kale ama galmudug dhexdeeda ama dowladda federaalka ma jiraan Dhuusamareeb ayaa saaka waxaa nooga yimid baabuur boolisa iyo kuwa nabad sugida abaarihii aruurnimo ay soo galeen saaka mar ay tahay halkii saac subaxnimona waa naga noqdeen haatan marka ayaa ku sugan magaaladii 10 wiil booliska iyadoo xalal la soo weeraray hadda ku sugan magaaladii dawladda galmudug waxaan u sheegi lahayn oo ka codsanaynaa ciidamo badan ceel dheer waa deegaan weyn dad badan ku nool habeenka qabowgan iyo qax kuma jiri karno waxaan ka codsanaynaa galmudug inay meesha ciidamo ka isku hadlayno oo nabadda naga sugay amniga